timahaagu waa shakilaan inay yihiin taashka quruxda waa mid caadi ah haddii aad doonaysid inaad horumarisid balse ma aha mid ka hor imanaysa rabitaankaaga haddii ay ka go'an tahay inaad dib u beertid timihii aad weyday waxaa laga maarmaan ah inaad samayso hab dabiici ah kuna dar dulqaad iyo samir waayo isbeddelku wuxuu qaadan karaa bilooyin ama sanado waxaa la cadeeyay inay tahay mid faa'iido leh kaana caawin karta inaad dib ay kaaga soo baxaan timahaagii kuna sahli doonta inaad mar kale aad timo yeelato walimkana qadar yar oo ogeysiis ah haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe taabo comment bixi like saar ku jijeliska ama gambaleelka si ay markiiba kuu soo gaadhaan barnaamijyada aan soo gelino siina shaqre mahadsanid duugitaanka ama masaajka madax wuxuu dib u soo celiyaa timaha waxaana haboon in xilliga la isticmaalo saliidaha timaha koriya habkani wuxuu ka qayb qaataa dardargelinta iyo xoojinta timaha dhanka kalena duugitaanka ama masaajka madaxu wuxuu hoos u dhigaa xaaladaha walwalka iyo deganaansho la'aanta ee qofka la soo gudboonaada aloe vera waxa la isticmaalay waqti aad u fog waxaanu dawo ka yahay timo daadashada waxa kale oo loo adeegsadaa madaxa si loo yareeyo xaaladaha la soo darsa madaxa sida cuncunka waxa uu yareeyaa taxurta madaxa waxa kale oo dib u furaa daloolada timaha ee xidhmay waxaa la soo jeedinayaa in usbuucii hal mar la isticmaalo iyada oo shaamboo lala isticmaalayo saliidda qumbaha waxaa ku jirta fatty acids waxay awood u leedahay inay si toos ah u dhex gasho halka ay tintu ka soo baxayso waxaanay ka hortag u tahay yaraanshaha borotiinada muhiimka u ah bixitaanka timaha waxa kale oo ay ka hortag u tahay daadashada timaha waxaa jira baaritaano caalami ah oo sheegaya in isticmaalka saliidda qumbuhu ay qayb ka tahay bixitaanka timaha waxaana dawo ahaan iyo in lagu qurxiyo timaha loo isticmaali jiray qarniyo hore fifiskal waa maaddo dabiici ah waxaana ka qayb qaadataa dib u soo bixidda timaha daata ama go'a gaar ahaana dadka ay timahooda ay u nugul yihiin daadashada ay khafiifka yihiin ama ay jilicsan yihiin waxaa ku jirta maadada amina mar c oo sare u qaada soo bixitaanka timaha waxay xoojisaa jiritaanka unugyada iyo inay dib u samaysmaan haddii ay dhaawacan yihiin saliidda kalluunka omega 3 fatty acids oo laga helo kalluunku waxay naga caawisaa in timaha ay helaan nafaqo iyo borotiino ku filan qaadashada omega oo ay ku jiraan antioxidants waxay faa'iido u tahay helitaanka timo qara iyo dhumuc leh waxay hoos u dhigtaa timo daadashada omega 3 fatty acids waxay ka caawinaysaa inay si sax ah u shaqeeyaan unugyadu waxay sare u qaadaa difaaca waxaanay wanaajiyaan guud ahaan caafimaadka timaha ginseng qaadashada dawooyinka laga sameeyay ginseng waxay horumarisaa bixitaanka timaha waxaanay dardargelisaa halka ay tintu ku taalo inay si fiican u shaqeyso maadada ginsenosides waxay saameyn wax ku ool ku leedahay bixitaanka timaha basasha waa mid faa'iidooyin wax ku ool leh waxa la arkay in basasha la miiray ay waxtar u leedahay timaha daata ama go'a gaar ahaan bidaarta waxay sare u qaadaa bixitaanka timaha sidoo kale basasha la miiray waxay ka qayb qaadataa habsami u socodka dhiig wareegga tijaabooyin la sameeyay ayaa lagu xaqiijiyay in timaha daata ay dib u soo bixi karaan haddii la isticmaalo saliidda rosemary waa mid ka mid ah saliidaha ugu badan ee dadku isticmaalaan si ay uga caawiso korriinka timahooda hoosna ay ugu dhigto daadashada timaha saliidda rosemary waxay kaga shaqaysaa sidii ay u soo bixi lahaayeen timo cusub waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu daweeyo nooc ka mid ah bidaarta oo loo yaqaano androgenic alopecia saliidda geranium isticmaalka saliidda geranium waxay dib u soo celisaa bixitaanka timaha waxaana sare u qaadaa qulqulka dhiigga saliidda geranium waxay ka caawinaysaa helitaanka timo qara leh nafaqaysan iyo dib u soo celinta timihii daatay liin dhanaanta waxaad isticmaali kartaa liin la miiray ama saliidda laga tuujiyay liinta waxay sare u qaadaa tayada timaha iyo bixitaankooda waana sababta loogu daro shaambooyada iyo saliidaha in isticmaalo saliidda liintu waxay naga caawisaa caafimaadka madaxa iyo inay timuhu u soo baxaan si caafimaad qabta